ninka waan soo tagnay wuxuu u salaamay salaanta islaam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale si faham baa ugu celiyay waan wada hadalay wixii dhacay meelaha ku xidhnaa iyo dhibaatooyinkii jiray inuu iga raali geliyo kadib wuxuu ka bilaabay hadalka waxaad ka tirsan tahay adigu kama tirsanid urur argagaxisan waxaad ka tirsan tahay ummad gobonimo doon oo freedom fighters waxaad soo marteen halgan waqti badan soo socday oo xaq u diray ummad waliba in ay gobonimo iyo sharaf ku noolaato xaq halgan wuxuu qayb ka yahay sumcadda iyo dadnimada iyo aayad kasta ummad ay leedahay hadal dheer buu soo jeediyey halgankii dheeraa ee ogaadeen iyo dadkii usoo dagaalamayay ammaan dheer buu ka bixiyey wuxuu hadalkiisa soo ku bilaabay halgan waqti dheer soo qaatay oo gobonimo doon cidna ma aqbali karta iyo dadkaaga iyo dalkaaga madaxa ka noqonaan anugu aan kugu maamulano cidna lama oran karo kuwii ururka saasaha ma ahayn urur argagixisaa kuwii ururskada qolab argagixiso ee ku farnaysay shacbiga dhiiggiisii iyo xorriyadoonka dhiiggiisii kuwa ayaa argagixisa oo dambiilayaal ah qodobkaana maantaan ka saarnay shacbiga dalka farbaddeeda saas way badnaayeen hadalladu way badnaayeen halgankii in laga hadlo uu ka hadlo way badnaayeen wixii xal noqon kara uu kaga hadlayay waxay ila muuqatay siyaasaddu inay wax badan inay iska bedeshay marka waxaad moodaa aragtidii iyo ra'yigii innaga baan qabnaynaba hagan inagu waxaan aaminsanayn oo aaminsanahay oo weligaan ahayn dad gobonimo doona oo raadinaya inay ka xoroodaan gumaysi dhiiggoodii iyo dadkoodiina ku bixiyey waqti dheerna ay u qaadatay wax ka sokeeyo oo aan ku qancin karnaana ayna jirin waa markii ugu horreysay Itoobiya oo ay qirato halgankii ogaadeenaya ka socday ee ummadda Soomaaliyeed ay soo gashay inuu ahaa halgan xaqoodirada xorriyada ugu doonayay sharaf iyo karaamo ummadeedna xambaarsanaa wixii laga galay oo dambiga iyo dadkii ugu laayayna uu yahay jarimo laga xisaabtami doono waa markii ugu horreysay hagaan intaas wixii ka dambeeyay siyaasadda jihada ay qaadato iyo waxa laga yeelahayo iyo wax gaarkeeda ruuxa oo bandeerada dadka Soomaalida ku maamulada laakiin waxa fiican ruuxa oo markuu biyaha cabahayo biyaha laftooda inuu xaqiijiyo biyaha caafimaad qaba biyo khalad dhib ku waa inaad xaqiijiso biyahana cabaysa laftooda Soomaalida marka waxay dhahdaan mira barda duuduub lagu leeqaa innagu waxaan la fahmo duuduub ma laha maxaa duuduub loogu leeqaa waxa meesha ku jira la qarinayo hal ogaad taasaasan waajib doona insha Allah ta'ala وحكست أن بتقليه يوناي الوجاري وحنا كمان قلنا إنه قرادي خلافي تجاري قرادة حبنا بتقليه وهذا المحلي ومبادئين وأقول سبحانه إن شاء الله تعالى كنت أعلم ما إنه من بلاد دوشة تنبسك سعرية ماشان اللي بحبه فلينا هو حرر النهاية حقيقينا إن شاء الله تعالى هدفك هي مبادئ أمة الصوماليين الأوغاديين waxay u soo dhamaadeen waana xaqiijinaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa in uu maslaxad wixii aana ina waafajiyo ilaahay baana nasriga haya nasrigu waa hantida ilaahay cidda doonuu siiyaa xilligu doonuu bixiyaa ilaahay inaan barinaa loo baahan yahay haddii ilaahay uu nasrigiisa ina siinayo makhluuq oo dhan haddii isu yimaadaan ma hor istaagi kara ilaahay hadduusan ina siinaynin dadaal kasta oo la sameeyo duniduna ina la safato laguma gaari karo sidaa darteed waa inaynu qadino ilaahay baryadiisa iyo taqwada waa inaan qadino waxaan doonaynana
aan ku adkaysana shayga xaqa ama dad yar ahow ama ha lagu cileeyo ama dad badan hayso xaqa waa lagu dhagaraa waa lagu dhintaa siyaasaddaas waa taas qoladaas innaguna kulley waxaan wadabaadiideena innaga iyo siyaasaddeena iyo taa waa lala socda wax qarsoon ma waxaan rabaa inaan soo koobo oo u soo noqdo dardaaran iyo halgamaaga iyo shaqadiisa halgamayaan iyo walaalayaal markaad halgam aada sutaan waxaa tahay qofka u qaaday ballan inuu karaamadooda iyo daryadooda iyo umadnimadooda inuu difaaci doono inuu xorayn doono qofka halgamaagu dadaal kasta wuxuu ku bixiyaa halgan wuxuu ka tagaa dantiisa gaarka wuxuu isku dayaa waxa bini aadamka ku dagaalamo waxa ugu badan dad adduunyaduna maanta waxay ku dagaalantaa waa tirada dadka ay haysato ama cod ha lagu dagaalamayo ama ha lagu dagaalamahayo isheeg warma ha lagu dagaalamayo waxa lagu dagaalamo waa dad wuxuu qofku u dagaalamaa inuu abuuro dad inuu abuuro dhaqaale inuu abuuro kalsooni ummadda kale inuu halgankiisa ku abuuro kalsooni halgankiisa inuu ku abuuro taas ku dagaalama halgamaagu maaha intuu dantiisa ganarkaa u leex danta halganka ka suga bishii mar in la yidhaahdo waxaase lagaga baahan yahay keen haddaynu guddigeena iska fadhiisanno wayna wax kala qabanin oon bishii $1,000 bixino umaduma ku xoroobi kartaa wax kalena inaan ku daro ma lagu dhisma karaa ma lagu noqon karaa laakiin haddaynu bishii bixino $1 waa $1 waa bishii xooggeenana aan ka shaqayno waqtigeennana aan gelino abaabul iyo dad iyo qalab iyo sidaynu ciidan iyo ummad midaysan u heli lahay sidaynu dunida sumcadeena iyo karaamada iyo halganka iyo xaqnimadiisa way iimin lahay inta ilag baynu u qaadan lahay in aynu dalkeena iyo dadkeena maanta ayna meesha yaallaana foosho inaynu oodinso awooddeena inaan dhisno wax noqono waqti yar baynu u qaadan lahay saa suuragalma halgankeennii laba isugu darmaday dadkeennii 3 aan dhaho qayb naftoodii hurtay wax alla waxay heli kareen ilaahay oo anugu adigaan kaa iibsaday naftayda isgeeyiisayleedda dhimashada boqolkiina laga yaaba 90 inay hadda dhimato inay shihiiday 90 wax ka badan inay shihiideen ayagoo beel qaba oo dadla tolana oo muslimaadaya oo gaashaysan koox danaheeda iska raacatay oo wax barata oo gaalo dhisata oo dumar badan iyo rag badan yeelata oo waxay ku hawlgalaan wax yar no ma doonayo anigoo halganka xoogaalo ah lagabana yaaba kuwa ugu dhibka badan uu ka gaadhay inaan haddana waxba la warwareego ma doonayo runtii ma doonayo waxaan aaminsanahay hadduu khalad yahay dib baa laga sixi doonaa waxa ay bixiyaana uu noqdo $5 $6 $10 iyo wax ka hooseeya laga yaabo in qaab wax badan bixiyana in la helo cid walba waxay bixisay isagu wuxuu ka arki doonaa maalinka yawmal qiyaama waxay ku qoran tahay kitaabka loo dhiibi doono hadday yareedii hadday badnay taas waxba uma baahan in anaga hadda faasir badan ka bixino waxa ay bixiyaan oo dhan markaan xisaamin mararka qaarkood hal dagaal maalintii markaan galo maalin walba dagaalku dhacay oo ilaa min baabiin iyo duleedka feerfeerintaas ardayda ka dagaalamay الأليس maalintii waxaa inaga dhici jirtay in ka badan 50,000 oo xabado ridi jirna 50,000 waa ugu yaraan yar الأليس
وحالكي حبوا لقلوا 1.5 أما وحكا بدن ومعاني والبيض خرج دقال كينا يبح مركع في لسان انت أصل dadku waxay bixinayaan aad fiirsan ma tahay waxa lagu horumarku sameyn kara ma tahay dhaqaalaha la bixinayo maalmaha qaarkood waxa dhacaysay dagaal asbuuc socda in la galo oo 10 milyan oo xabadood ku qaxaysa ugu fiday oo 1.5 wax ka sareeya ku dhacay lama xisaabtaminba lama xisaabtamin dhiigga naftuura iyo xaliyiga qubanahay meedka isma weydiinayno waa hantida baxaysa kaliya يا سيدي dadku ay u fikirayeen waxaan waa laga furuuta joogay waxa lacag oo leeyahay lacagta qoladaas ay ka tin ama jaariyadaha keenay mana soo gaari karto hadii la yiraahdo hal maalin qadada ciidanka hal bixiyo qadada ciidanka hal maalin hal bixiyo Afrika oo dhammayna bixin karo qofku markaas oo saas wadana wuxuu aaminsan aan xoogii wax badan ka qabanayno عندنا واحد بدن كقبانيني يبقوا هذانا لنا عنا وحكا دليرو لنا عنا وحكا عنانتو لنا عنا أطوركاها تاوي حانوغا شيدا وليش لحد هذا ويدغان تقال ميلا لبكنا هذا وحانو ما هذا دلينا قبلهم كانوا حد محن وله هذين يقول الصومالية ذو بدن التاكلين دوركو يوين عاتم هذه وحكا إمانايين waxay ahayd in loo diro raga in badan oo ka badan waa ma hadranay laakiin waa badana wadanka waa xaaladda guud ee halgankeena wixii haystay waxaan ogahay wax hadda aan ku hadlahayo inuu saacad kadib baraha bulshada social media waxa la yiraahdo inuu geli doono caalamka oo dhan laga dhageysan doono yaan ogahay sidaa darteed cidii oo aragtay inaan ku gafay meesha waxay soo mariyeen waa la yaqaan لكن هو أركتي ذا إذا حوجال كأنه عن يهلك عن حوجال كأنه ما أنت وحي اللي يريده أيضا حرض صراحة مبالو بعاني هذا إنه قلنا هنا إنه تولي المحساب ولا هذا الله قال له يشيس كأنه طال كده موجود بعاني هاي ضد رقالة أقوم كرتي يؤمن بلسانه تقول باستقبال كده وأمضي بعض تبو كلا عمرين اللي جاز وقت الدوا حرض والبدل الوجان تونا مروا البدل ذلك إني هركي بقصص عنه ما عندي هذا حل جاله إنه لما هو شفتين دون حفيز وقال الله هنا وسهل السوقين دون معهم هل كي عصاق ولا عن كل بيرين لغير غير من كيا لكن صنعت كي أورد كي واحد يصير نقاره هذا واحد بدل ما يروح هاي لناس يعني مارت وسوق بينها بعدما هالجميع بدل ما هو شيء بدل ما هذا اللي يوريه على تردارا ولا لا يوريه الجميع وحنقول تردارا تو وحيد حتى كفر إن جاه سامي إلين إن جاه سامي خلاص الحال وكسر بودي بيجتروا لو حان الجيل تجعلهم هي دبكوا كل حي يجيب تاكلين هي ويشغل في تاكلين سلام فاصل ده كسر الحال واتجرنا يسانو وكل مدة النهار كذا بدل وهذا الغريب على إن شو مجال ما هميشة تطبع وغيران أنت أنا بقوله كل يلا بعتان قف شعر هذين أنت رسول خياني ودليل وفوجتي أحور يا المال يحدونشلي المال لون يلونشلي جماعة يلوينا واستار كأيه وفرنا هذا لقلا صوب حدد كي دليل هذا حافل يا إني نيروبي شغله ووحى يا وحلا مذا وحي كلا سطحا إلهي وحمد لساننا إنه نقربت هذا طبعا عام أربعة سنة طول سوون نقول ولكن ما دققت إنه بس بوري جيسني الله إن إلهي هو واحد على ويله أنا وحي يقدر بنا بالبال إلهي وخيرنا النصيب وحن دون إن إلهي النصيب لكن خلك الأربعة سهدين إلى كل جيبة ما كده ما نضط ولا أنت تذكر بالك
وأنا معنا بالبيل كدولة نقول ورمان ضد بحق من كلامه وحد حيوان كسرانينا سيد الشيخ وشاقي وفكا هذا شرح هذا إسلام كون بعمر مهم إن لو حساب طبعا أنت عن مركز دردانا كي عم كسر هل اللي بحب بعض أنا واحد صوصنا علينا لكن كعمل سلة تجمعنا أنه حتى دجال بالله بمين واسيد يدون هي عند بدرنا العدوية تكريله إن أنه حتى أربع سنين ورما مر أكون دون رهن أبحي قبلي وطلع وحاس وحلا دوني عدوي ومدان هيستوي أول دوني أنتم إن بابية باقي أنا يسوي إنه دب يسوون على أرباس يهلا أنا ولي بين بكبي قفروا وحدين تقولون وخلاص أنا ما كان له ويلون فعل بيننا كفلونين لكن حصوصت وكجري إن شاء الله تعالى عندكم هبوناتي حل جدنا والله قال حساب طبعا كو حرمنا إنه حد بارك كو إن أباب إن بلونه أباب الناس كمان إنه اسمه أباب إنه حد من هالجميع والله يحكي أحد إله يجري فعندنا هي حرية هي كرامية هي أمة الصوماليات أيضا كل كودي وكذا أمة الصوماليات كل قارو لنا مجد هذول حروبنا أمة الصوماليات وكذا حاجة كمان تشوف حمر هي تشوف حرر داري هي تشوف تجارس هي كلو يحدي جبيت شوف يا ودي يهون بريق بدار يا وردار يلي بقى ينادور بستو ما لقى شغل ودبوا هيك سكر يا ودي لك وعوضنا على سواء المشكلة حتى ما كان لهم يستنى نجي تقارير قال له بيستو سومر والله دبوا والله بيستو والله دبوا سأضرت عم بهنا يرى إنه نقول من ما تصومارية وردم إنه كل تعامل كرنا قد يدن الغرب بينكروا أباب كانوا نقضوا مدح حكمة يدل بعض كانوا اتحاد بهنجري كانوا أولف بهنجري كانوا تبغول بهنجري وحاصل رمى كينا قديم حرمنا هنا ما تصنع عليه ولا علموا سوسو لوانشو وحوض قبسي أنا خيال أنا الله يرنا هديب الليلة شيئا بحد الليل لا ما واحد بقى هدي لنا الليل وحياة قرب كنا لنا الليل والليل تقولوا كده دودينا وحالنا هنا واقعين وحنينا قرنين والله ما كبرنا هنا ضدك تاسوغو وهنا ضدك نسيب الله تعالى تعالى وأنا ما فكرت إنه ما أنت ودي يا رب حقبت أمر الإنسان ربنا فيك تقول سريسي ما صارن هذا فيك تقول سريسي بمصارن هل كان متاجناك أنا تقبل غوفة كم أصل كلمتين أما فيك تقول إنه كم بحنا واحد مجالنا مسرح اللغة عنا كان يرجعني ترى كمان يعني بتشتغل وعنك النبي ولا شيء وحنا نقول يسألنا ما كان إله ترى صارنا ما كان إله برينه ما كان سكوك الصوانه ما كان كنت شايفنه ما كان وحى الله عليه وحنا نفتح عليه يدب لها عن كذا. السلام عليكم ورحمة الله.